bismillahi raxmaan raxiim aad baad mahadsantahay walaalkii maxamed runtii waa xilli xasaasiya xilligani waa xilli sanadkii 2018 la gudagalay oo shirkii weynaya African Unionka ee sanadlaha laga soo baxay oo la qiimeynay guud ahaan xaaladda qaaradda ku sugan tahay iyo tageeska waayo Ethiopia waa saldhig guud ee midowga African Unionka waa xaruntiisa guud ee hoosgareynta Afrikada oo dhan weeye marka Ethiopia waxaa ka jiray ilaa 2015 dhamaadkeedii ilaa iyo maanta la taagan yahay mudaharaadyo soo tarayay banaanbaxyo ballaaran xagga ganacsiga oo la qaadacay in la iibgeeyo jaadka oo kale ubaxa oo kale yacni dadku aad bay u cabursanaayeen baad moodaa marka inay aada u cawanayeen dad badan baa la xidhxidhay dad badan baa ku dhintay mashaqooyinka banaanbaxyadu keeneen marka akhiiran waxa la soo gaadhay waktigii la sugayey ee qof wal oo caaqil ahaa ama caqli weyn lahaa ama Ethiopia mustaqbalkeeda fog eegi jiray wuxuu eegayay in okay way dhacday waxaan oo dhani waa intii meel iska dambeysay oo uu ra'iisul wasaaraha noqday ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn maxaa haddaba sababi kara in mudaharaadadani joogto u noqdaan ay socdaan waxaa jirtay maxamed oo 2016 ra'iisul wasaare Haile Mariam Desalegn wuxuu sameeyey emergency state yani dadka in dalka oo dhan bando laga dhigo xaalad degdega oo bando dalka oo dhan ku jiray yani deeq-bixiyaashii caalamiga ahaa kuwii investorska ahaa ee maalgashiyaasha ahaa kuwii shirka midowga Afrika yimanayay dadkii dhan baa cadsanayay xaaladan degdega goormaa laga qaadaya dalka 4 bilood buu ka dhigay uu ku sii daray 6 bilood buu ka dhigay uu ku sii daray sanad buu ka dhigay yani caalamkii oo dhan indhihiisu waxay soo eegeen Ethiopia okay dama dictator baa tahay waa inaad xaaladan degdega wax ku xalisid weeye xalkii lama gaarayo maxay tahay sababta aad baa loo dhaleeceynayay intii ugu dambeysay marka يعني سنة يا بركة هربق جاستي مادام مارين كرواي وتاجواي حالدين ودجيو ويتوبي سيد الله قبرتي عادي هي دجناشي حسلوني ذي كسر عليه إنه يسألون. مركا عدالس باك جاي من الله بيش عالم كي يدق بحياشي وول بانك جهور مركي يتوبي كسر عتي يدك تغيري يا عدالس كجاي مد معها عدالس كان جودها ودك كهيستا أما قبل كورمية هذين نقول هيد أما سكون عصام على دي أورمضة يوبيلها كلام كجرة. والله dalkii oo dhan ba stack u galay yani dibadii way ku weydiinaysaa maxaa dhacaya caalamkii uu ku weydiinaya maxaa waxaan xalin weyday gudihii dalkaagii dadkaagii way mudaharaadayaan ama dad baa dhimanaya maalin walba marka labadii dhinacba yani cadaadis baa kaga yimid uu xalin kari waayey waayo waxa la odhan karaa ninkani muu hayn siyaasi muu hayn Mariam Desalegn 2019 bay ahayd markii Mala Zenawi ra'iisul wasaarihii hore uu gacanta soo qabtay isagoo doonaya inuu kusoo daro dadka technocratska in siyaasiyiinta ahayn farsamayaqaanka iyo aqoon-yahanka inuu xisbiga kusoo daro 2019 dadkii gacanta soo qabtay kusoo daray bay kamid ahaa ayuu kamid ahaa Haile Mariam Desalegn marka siyaasi muu ahayn nin aqoon-yahan oo aqoonta ku fiican buu ahaa nin dabacsan buu ahaa Ethiopia waxa umay baran runtii marka maanta si qeyr laba u hadlay wuxuu yiri waxaan u arkaa is-aslaadayda in Ethiopia nabadeeda iyo dimuqraadiyad waarta iyo Ethiopia sidii hore kusoo noqoto magaciisa sumcaddii caalamka ku lahayd dib u soo noqdaan dadkaygaani maalin walba dhiman anoo tixgelinaya waxaan u arkay inaan anigu is-asilo yani waa nabadii iyo dimuqraadiyaddii iyo mustaqbalka Ethiopia waa gartay markaad fiiriso xisbigii talada hayay EPRDF arrintan maxay uga dhigan tahay ma in siyaasadoodii furfurayaan oo dimuqraadiyad ay qaadanayaan oo ay ku soo kordhinayaan xukunkii dalka Ethiopia dhammaan dhinacyada hadda diidan ee mucaaradka ah maxay ka dhigan tahay marka xisbiga la fiiriyo runtii xisbiga marka la sheegayo yani markuu aabo weyn oo dadka iyo dalka aad u yaqaanay gacan adag ku hayay adduunka si adag loo macaamili jiray dadku nabad ahaa markay eegayaan waxay u arkeen xisbiga DF inay guuldaraysteen waayo siyaasadda uu ku dhaqmayay dabacsanaanta aadka ahayd Haile Mariam Desalegn cidba umay naxariis u noqon yani dadkii dhan way kasoo wada horjeesteen marka hore wuu yidhi isagoo 2 sano ka hor buu yidhi markii xilkan dib lama dooran markii hore kusiisug buu ahaa Mala Zenawi markuu dhintay 2012 ayuu si ku meel gaadha xilka u sii hayay ilaa 2013 markaasaa isaga la doortay 5 sano marka in xisbigii siyaasadiisii baabaaday dadku dhimanayaan dalkii xitaa investmentkiisii dhaawac weyn soo gaadhay marka maanta waxaad u arkaysaa inay aada u faraxsan yihiin iyo Harig Partigii oo ay furfuri doonaan taladii xisbiga u yeedhi doonaan mucaarad iyo maxaafidba يعني jidkii toosnaa ee 20 sano ugu dambeeyay ay ku socotay Ethiopia in dib loogu noqon doono ayad moodaa inay follow tahay tani maanta markaan fiirino xisbigan EPRDF inkastoo Desalegn uu ka tirsanaa oo xisbiga guud uu ka tirsanaa haddana waxa xisbigan uu ka kooban yahay sidaan ognahay isbahaysiyo isu tagay oo dhinacyada dalka Ethiopia gaar ahaan koonfurta marka yaa bedelaya loo malaynayaa runtii Ethiopia waxa la yiraahdaa waa mystery country waa dal aan la fahmi kareyn waxa ka socda yani marka la eego waa taariikh guuna oo boqortooyo oo wax walba qarsoodi kusoo hirgaleen kusoo dhisnayd weeye ninka Haile Mariam Desalegn wuxuu kusoo jeedaa xisbiga Democratic Party la yiraahdo dhinaca koonfurta weeyaan walayta dadka soo dareenkay kasoo jeedaan
marka isbahaysigii EPRDF waa xisbigii weynaa ee oromada, amxaarada, soomaalida, yani afarta cid waliba ay ku jirtay weye. marka dee xisbiga EPRDF ku-xigeenkiisu waa Damaqan Mokonan oo ku-xigeen ah oo amxaarada kasoo jeeda gobolka amxaarada, laakiin lama odhan karo isagaa bedeli doona, waayo isaga laftiisa in la xisaabiyaa laga yaaba. Ethiopia waa dad aad dawladeedu iyo xisbiga ugu adag yihiin. qofkii dhaawac soo gaarsiiya sumcadda dalka iyo karaamadiisa in la xisaabiyo la yidhaha okay maxaad qabatay. haddii maanta uu iscasili waayi lahaa xitaa Hailemariam Desalegn in la xisaabin lahaaba suuragala. markaasuu xisaabta uga badbaado sumcaddii dalka iyo dadku yidhahdo waan ilaalinayaa, inuu isaga naftiisii yidhahdo okay anaa badkiiskeenee dee hala igawraco, hana layga raalli ahaado, ayaa u arkaysa inuu xal tahay. marka lama saadaalin karo runtii in ku-xigeenkiisa oo Damaqan Mokonan ah oo dee qaadan doono jegadaas, iyo in nin kale oo ka wanaagsan oo siyaasi rugcadaaya loo dhiibo jegadaas. markaad fiiriso gobolka Soomaalidu degto Ethiopia ee kilka shanaad, madaxdii soo martay waxa aad loogu xiriirinayay inay u dhawaayeen hadba dawladdii markaa xukunka haysay Ethiopia, gaar ahaan EPRDF-ta. isbedelkan ku yimi markaa hogaankii sare ee dawladda Ethiopia, Meles Zenawi waa tii meesha ka baxay, haddii Saleno ka dambeeya ka baxay. saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa arrintan maamulkii Soomaalida Ethiopia ee kilka shanaad? waad mahadsantahay Maxamed, waa su-aal aada muhiima. Soomaalida yani waxaad moodaa in labadii sano ugu dambeysay ay dhibaato iyo tacadiyo iyo yani mudaharaado iyo wax walba ku dhaca ay kasoo gaareen dhinaca oromada ay wada degaan ay walaalaha yihiin, oo iyaga laftooduba dee cabanayeen baa suuragala. marka maanta iscasilaada Hailemariam Desalegn waxay keeni doontaa reshuffle guud oo dawladda guud lagu sameeyo, dalka oo dhan lagu sameeyo, goboladiisa oo dhan, Soomaalida, oromada, yani dadkiisaysay oo dhan inay ku kala bixi karaan baad moodeysaa, yani rajada muuqanaysa. marka kilka Soomaalida kale Cabdi Maxamed Cumar Iley baa ka madaxweyne, waa madaxweyne firfircoon, yani aad u bartay dadka iyo siduu loo macaamili lahaa dadkiisa, xisbigana aad ugu xidhnaayo saaxiib dheer loo ahaa Meles Zenawi. marka waxaad moodaa taariikhdaas oo ka tusaale qaadanaya inaanay Ethiopia u dhutii doonin Hailemariam Desalegn silsilaadiisa guud ahaanba. gaar ahaan Soomaalidana waxaan odhan karaa waxay u tahay fursad qaaliya oo ay maanta ku cabiri karaan yani halkay doonayaan inay gaadhaan, ay kula nabadoobi karaan walaalahooda ay wada dhasheen ay wada degaanayay oromada oo kale. bismillahi raxmaan raxiim. aad baad mahadsantahay walaalkii Maxamed. runtii waa xilli xasaasiya xilligani, waa xilli sanadkii 2018 la gudagalay oo shirkii weynaa ee African Unionka